si aynu markaa filekeena u soo samayno ama websitekeena aan ku dhex doonayno ku dhex shaqayno aan u samayno waxaanu tegaynaa halkan file ka dhigayno folder baan u sameeyay js la yidhaahdo markaa waxaan odhanayaa open with code kadib waxaan odhanayaa markaa ama inaga soo saar waxaan odhanaynaa halkan new folder first baan leenahay markaa halkaasaan sii dhex gelaynaa aan ku shaqaynaynaa markaa kadib halkan waxaan odhanaynaa markaa waxaan leenahay halkaa index.html markaan intaas samaynay waxaan taabanaynaa oo keliya qoraynaa calaamadda tacajubka kadib waxaan taabanaynaa tab isagaa intaa kale inoo samaynaya marka aan doonayno haddaba in aanu soo dhigno marka aanu doonayno in aanu soo dhigno ama aanu ku soo xidhno ama aan ku dhex darno filekeennii htmlka ahaa javascript ku xidhno waxay noqonaysaa inaan marno 2 tallaabo waa midda koobaade in aanu ku dhex qorno fileka dhexdiisa filekan hadda aan ku dhex jirno dhexdiisa inaan ku qorno oo waxaanu samayn karaynaa markaa inaan nidhaahno script baan furaynaa halkaasaan markaa ku dhex qoraynaa ama ha noqoto xir dusheeda ha noqoto ama ha noqoto bari dusheeda ha noqoto ama waxaanu samayn karaynaa file gaara ayaanu samaynaynaa markaa مثلا waxaanu bixinay mine kadib waxaan wax ku dhamaanaya .js fileka javascript ee gaarka u taagnaanaya waa inuu ku dhamaada .js magaca dot wada bixin karaysaa laasa ahaatee waa inuu ku soo gabagabo .js kuurkan doonay marka halkaas ku qoraya maadaama labadan fileka html-ka iyo ka js-ki aan isku xidhnayn qaabkan isugu soo xiri karayana waxa weeye inaan idhaahdo script source-kiisa waa halkee waxaa le waa mine.js kaas aan ku qori karayo linkigaas aan ku qori karayo head dusheeda ama aan ku qori karayo body dusheeda haddaba keebaa saxa inaan isticmaalo in aan fileka ku dhex isticmaalo javascript ku dhex isticmaalo fileka html dhexdiisa iyo inaan mid gaara ka dhigo hadba sida shaqada ku wadi karaysid ay noqonaysaa haddii aad doonaysid inuu gaar u ahaado xaashidaas oo keliya ama filekaas oo keliya waxa habboon inaad ku dhex isticmaashid isaga dhexdiisa ku dhex samaysid haddii aad sidaad doonaysid inuu soo noqnoqdo oo faylal kala duwan oo html inuu mid walba uu ku xidhmi karo waxaad isticmaalaysaa markaa mine.js ama waxaad isticmaalaysaa baan leeyahay file gaar aad isticmaalaysaa su-aasha kale waxa weeye keebaa saxa inaan ku dul qoro head dusheeda ku qoro iyo inaan beri dusheeda ku qoro keebaa saxa waxa saxa ee aad noqonaysaa beri dusheeda aad ku qortid waayo fileka computerku ama browserku markuu akhriyo fileka html-ka wuxuu kasoo bilaabaya dushuu kasoo bilaabaya amarka javascript xagan ku siisay ee aanu weli gaarin elementskiisii mushkilada baa ka qabsanaysaa hase ahaatee laakiin hase marka uu hoos gaadho oo xagga hoose u gaadho hadduu filekaaga iyo kuurkii javascript xagga hoose ay yaalaan uu soo dhaafay elementkiiyo uu qabsan karaya u fahmi karaya markaa